waxaan ku dhashay degmada Xudur xarunka gobolka Boqol 1956 bishii Abriil da'daydu waa iska qiyaasi kartiin dadka da'da waa qarsadaan ma qarinayo 65 sano waa dhameeyay khibradayda haddaan wax idinka taabto horta aqoontayda haddaan wax idinka bilaabo intaan ma arkay aan dhaxgalin khibradayda aniga takhasuskaygu wuxuu yahay علوم إسلامك قارهان شريعة إسلامك iyo علوم دراسات إسلامك aan ka sameeyay علومتay aniga waxay maaragtay ku saabsan tahay dhinaca shariicada islaamka iyo علومta islaamka waxa ila jira 30 sano ku dhawaad oo way aragnimo ah shari kasta iyo heer kasta dalka loo dejiyay aan goobjoog u ahaa aqoontay markaan soo koobo dhinacaas ay u badan tahay dhinaca waxbarashadayda kow 93 ilaa 95 waxaan noqday gudoomiyaha degmada Xudur 96 laga soo bilaabo waxaan ka mid ahaa odayaashii waxgaradkii siyaasiyiintii ku mashquulsanay sidii dalka Soomaaliyeed oo burbur xun soo gaaray loo heli lahaa dib u heshiisiin ummadda Soomaaliyeed isku soo celiyo iyo dawlad dalkeena meesha loo heli lahaa baan yaan ka mid ahaa shirarka aan ka qayb galay waxa ka mid ahaa shirkii Soodare oo dadkii la rabay qaarkood imaan waayeen oo dawladda ugu dhawaaqi waayay oo urur la soo sameeyay in Soomaaliya isu keeno lagu soo go'aansaday aan dawladda ugu dhoosin laakiin lagu go'aansaday in 4.5 wax lagu qaybsado shirkii ku xigay wuxuu ahaa kii Jabuuti adiga ma aadin saaxiibo aan isku tiimahay oo la yaqaano waa ogtihiin meedka qarsoona ani waxaan ku jiray markii Soomaalida kala burburtay oo inta kasta deegaankeedii tagtay ururkii RRA baan ka mid ahaa mas'uuliyiintiisa marka saaxiibaday gudoomiye iga sareeyay iyo laba iga hooseysay ayo dad kala badan Jabuuti ka qayb galay waxa lagu soo qoray xildhibaanamadii nasiib wanaag markii dambe duruufo jiri awgeed kama qayb galin xildhibaan ma noqon markaas waxaa igu xigtay shirkii Nairobi lagu qabtay Eldoret iyo Embagaasi waxaan soo noqday anigoo dib u heshiisintii dadkii aad ugu dadaalay ka mid ahaa iyo dawlad dhiska wasiirka cadaaladda iyo garsoorka iyo xildhibaan ugu dambeyntii markii dambe aan dalka gudihii lagu soo noqday waxaa la ii doortay 31 January 2007 gudoomiyaha golaha shacabka halkaasaan qabtay waxa igu xigtay 27 December 2008 waxaan qabtay aan ku darsaday halkii gudoomiyenimada si dastuuri ah markuu iscazilay Allah u naxariista madaxweynaheeni hore marxuum Cabdullaahi Yuusuf halkii uu baneeyay asiga iska cazilay halkii gudoomiyenimada lagu daray waxaan noqday gudoomiyaha golaha baarlamaanka ahna madaxweynaha siihayaha jamhuuriyadda Soomaaliya waxaa ilaahay nagu guuleeyay markaas inaan isugu tagnay oo Jabuuti dawladda ugu soo dhisay intaas kadib waxaan ahaa markii dawladda la dhisay uu ku guuleystay dawladdii Shariif Sheekh Axmed waxaan ahaa xildhibaan gudoomiyihii golaha shacabka waxaana lagu guuleystay oo ilaahay nagu manaystay inaan ku ceeboweyn markuu madaxweynaha iscazilay shaki waxa yimid ama dalkii burbura aniga oo runtii la kaashanayay xildhibaanadii sharafta lahaa baarlamaanka iyo dadweynaha Soomaaliyeed iyo waxgaradka waxaan ku hogaamiyay labadii tiimkii mucaaradka midowgii maxaakiimta iyo dawladda ku meel gaarka inaan isugu geeyno Jabuuti walaalkeen Ismaaciil Umar Geela khayr Allah siiya iyo dadkiisa dhamaan reer Jabuuti walaalaheen goobisha noo fidiyeen inaan ku midoowno dawlad ku soo dhisano ilaahay ii soo guuleeyay halkiina markaas ku wareejiyay madaxweynaha la doortay Shariif Sheekh Axmed waxaan hogaamintooda bilaaway 275 horay u jirtay ilaa 275 oo lagu daray oo hataa heerka ay soo mareen heer taageerayaasheeda is dileen hataa soo maray waxaan isugu geynay hal hool waana midooween dawlad sharaf baarlamaan sharaf leh